wafdigii simada iyo waxgaradka iyo qoyaanka ee ka tegay magaalada laascaanood ee gaadhi deegaanka saaxdheer ayaa waxay baaq wada jira soo wada saareen garaad jaamac garaad cali garaad jaamac iyo culimaaudiinka ugu horeeyo sheekh cabdinaasir xaaji axmed waxaana baaqaasi uu ku waajahnaa labada beelood ee walaalaha ee dega koonfurta gobolka sool waxaana garaadka iyo culimmadu ay ku dheeraadeen inay xabadda joojiyaan oo aysan jirin cid isu dhaantaa dadka deegaankaasi dega ee ku dagaalamaya garaadka iyo beeshii la soo dhaweysay waxaan odhan lahaa oo labada beelood ee walaalaha ee dhalooyada ah ee wada degan ee is ah ee aan dirutu dhex martay waxaan leeyahay inagoo joogna khawaatim bishii rabadaan ee barakaysnayd waxaan usoo jeedina ilahay inay ka baqaan oo la joojiyo dagaalka dadka dhalinyarta ah ee hubaysan ee dad badan dhiigooda daatay ilahay inay ka baqaan oo ayaamaha khayrka badan iyo wanaagga jira ee dadku ducaysanayo ee ilaahay baryayo inay xabadda dhigaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u jeestaan waxaan halkan joognaa saaxdheer goobta aanu ku sugannahayna waxa weeye qasriga uu ka degan yahay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac waxaanu ula nimi in garaadku uu baaq nabadeed oo labada beeloodba qusaya iyo xabad joojin ku dhawaaqo oo u sheego beelaha iyo dadka ishor fadhiya si dhiigooda loo joojiyo oo dhiig dambe aanu u daadan insha allahu tacaala garaadkiina dee waa naga aqbalay ergada garaad leh cuqaal leh culimo leh codkar leh dhalinyaro leh jazaakum allahu khayra jaza inta ka fadhida hawsha ee hawshan lahayd ee isima leh ee cuqaal leh ee raggarbood lehna waxaan ku leeyahay xaajada yaad magan iyo marti uga tihiin xaajadanaad ka maqan tihiin tolkiinna isdilaya ee aad ka dhex maqan tihiin ee aydan dhex fadhiyin ee colkooda aydan kala horayn cidda aad ka sugaysaan inay idiin sheegto waa ayo usoo orda usoo dadaala sida ragga kale u ordayaan labada dhinac walaalaha ah ee dhalootida ah ee isku dhaqanka ah ee ceelka iyo carshinta wadaagta iyana waxaan leeyahay tolkiin u dhaga nuglaada tolkiinna wanaagga idinla doonaya samihiinna jecel raba in wiilku uu u noolaado raggii ka dhintayna ay ka dhinteen oo garabkooda uu ka baxay ragga kalena inay ragga hadhayna inay badbaadsadaan raba u dhaga nuglaada aqbalaadda ugu dadaala soo dhaweynta ugu dadaala ilaahay hadduu kuu roon yahay si kastaad ula shaqayn kartaan oo nabadgelyada iyo wanaagga ay idinla doonayaan aad uga qaadan karaysaanba uga qaata wax idiin dhaamaa ma jiro waxaana ugu baaqaya inay labada dhinacba midba midka kale u badbaadsado xabadda ay joojiyaan nabadda ay qaataan taasaa noloshu ay ku jirtaa taasaa noloshu ku jirtaa walaalkaa iyo in adeerkaa aad disho nololu kuma jirto waa kugu dhimay oo kaa dhimay waxaad ku qurux badan tihiin oo in adeerkaa kuugu qurux badan yahay marka uu nool yahay ee uu ku garab taagan yahay haddii uu kaa dhinto waxba ku tari maayo waxaa laaliya wuxuu ku tarayaa ma jiro hala qaato ergadana mid baan farayaa ergada mid baan kula talinayaa mid baan ku wargelinayaa ergada waxaan leeyahay baroorta urgiga ka weyn labadan reer 1,000 sannadood in ka badan intii ilaahay abuurayba waa ay wada deganaayeen waa ay wada dhaqmayeen way isqaban jireen way isdili jireen sidan oo kale xaajadu ma ahaan jirin dhibkani wuxuu ka bilaabmaa uu ku dhammaadaa dhinacna uusan u dhaafsiisnayn maamulka xoogga ku haysta deegaanka dhulbahante qaybaha ka mid a maamulka somalilan yaa fidnada lahaa shirqoolkeeda lahaa hurinteeda leh
sidaa ay kuwii wax ka qaban lahaa xaajada uga xidhayaan ay isu leeyihiin ha dilaan ha isdilaan intii kale celin lahaydna waa ka xidhan tahay saasaa ka dhaba saasaa ka caqliya saasaa ay moodeen door inay adduunkana u sheegaan hubkana isugu dhiibaan yidhaahdaanna annaga nabadgelyo u wadna dhinacna hubka isaga dhiibaan dhinacna qolo walba yidhaahdaan qoladii kale halkaasay joogtayo gaadahoodu ama ilaaladoodu halkaasay taagneed halkaa haddaad ka gashaan waxa weeye waad gaadi karaysaan u sheegaya dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya saasaan u sheegayaa 250 qof ee 40 maalmood dhintay waxa dhibaatadeeda ka dambeeyay maamulka Soomaaliland waxa ilaahay hadda dabkii hurinaya waa maamulka Soomaaliland adduunka saasaan u sheegayaa igad wadamada dariska ah wakiilka jimciyadda quruumaha u dhaxeeya u fadhiya arrimaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya 100 jeer baan noo qabanay waxba u sheegi mayno oo waxba ka qaban weyd Soomaalida kale iyana saasaan u sheegaynaa arrintani ugub kuma aho meelo badan bay ka dhacday beelaha isaaq ee maamulka Soomaaliland leh waan u sheegayaa dhiiga daatay nafsigeeda waad heli doontaan marka aad wiilashiina iyo siyaasiyiintiina iyo dhaqaalihii adduunku bixinayay dadka yaga la isugu diro idin gafi maayo nafsigaas haddaydan ka hadlin oo aydan naga qaban oo aydan naga joojin bari baad nafsiga cuni doontaan waa dhita idin taala wabillahi tawfiiq Abdikariin Nolol Somali Channel magaalada Laascaanood